xilli kasta ayaa la filan karaa in xaaladda calowsan ee bariga dhexe ay ku sii siqdo mid iska horimaad ballaaran ah. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa isku urursanaya meelo istaraatiiji ah. Maraakiibta waaweyn ee xambaara diyaaradaha dagaalka ayaa feejignaan sare ku jira iyaga oo sugaya amar kasta oo degdeg ah. Maraakiibta ilaaliya iyo kuwa wax burburiya ayaa hareeraha ka wareegaya si ay u sameeyaan gaashaan difaac ah. laakiin Iran waxay marba marka ka dambaysa la soo baxaysaa xeelad iyo awood dahsoonayd oo la yaab leh. Muxuu yahay gantaalka xuudka sida qeyrul caadiga ah u naqshadaysan ee lala fajacsan yahay farsamadiisa iyo xawaarihiisa? Ma suuragal baa in gantaalka biyaha hoos mara uu hal daqiiqo gudaheed dagaalka uga saari karo maraakiibta diyaaradaha xambaara kuwaas oo qiimahoodu ku kacayo balaayiin dollar? haddii marinka ciriiriga ah ee Hormuz uu isu bedelo goob weerar ma sii ahaanayaan maraakiibta waaweyn astaanta awoodda mise waxa ay isu rogi doonaan bartilmaameed rasmi ah? maxaa dhacaya haddii weerar ka yimaado dusha sare lagu mashquuliyo difaaca halka khatarta dhabta ahna ay ka iman karto biyaha hoostooda? ma u bareeri doonaan maraakiibta waaweyn halista ah inay galaan meelaha juqraafi aan xadidan mise xisaabta istaraatiijiga ah ayaa gebi ahaanba isbedeli doonta? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan kaga jawaabaynaa tabinteennan Tafaftir Media ee soo dhawaada. iyada oo uu Mareykanku wado diyaargarow duulaan uu ku qaado Iran ayaa macluumaad ay soo dusiyeen ila amni waxay tibaaxayaan in xukuumadda Tehran ay diyaarisay hub badeed cusub oo aan wali si buuxda loo shaacin. hogaamiyaha sare ee dalkaas Ayatollah Ali Khamenei ayaa la sheegay inuu hubkan u xushay safka hore ee qalabka lagu bilaabi karo weeraro toos ah oo ka dhan ah maraakiibta waaweyn ee Mareykanka. hubkan ma aha gantaal hawada maraya mana aha diyaarad yar oo qarax sida, waa gantaal badeed biyaha hoostooda mara oo si gaar ah loogu talagalay inuu markabka ka haleelo meel ka hooseysa khadka biyaha, taasoo ah meesha ugu nugul markab kasta gaar ahaan maraakiibta diyaaradaha xambaara. hubkan waxa uu leeyahay dhexroor dhan 533 milimitir, dhererkiisuna waa ku dhawaad 8 mitir. waxaa lagu qiyaasaa inuu qaadi karo in ka badan 200 oo kilogram oo walxa qarxa ah. xawaaraha uu ku socdo wuxuu gaari karaa ilaa 360 kilomitir saacadii, taas oo u dhiganta qiyaastii 100 mitir ilbiriqsigiiba. si uu u gaaro xawaarahan sare, hubkan wuxuu adeegsadaa farsamo uu ku sameeyo xumbo gaas ah oo ku hareereysmaysa, taas oo si weyn u yareynaysa iska caabinta biyaha. tani waxay u ogolaanaysaa inuu ku socdo si ka dheeraysa hubbadeedka caadiga ah kuwaas oo badanaa aan dhaafin 80 ilaa 90 kilomitir saacadii. marka laga hadlayo masaafada waxaa lagu qiyaasaa inuu gaari karo bartilmaameed ku sugan ilaa 13 kilomitir. haddii uu ku socdo xawaare ku dhow 100 mitir ilbiriqsigiina waxa uu masaafo ahaan 10 kilomitir ku gaari karaa ku dhawaad 100 ilbiriqsi, taas oo ka yar 2 daqiiqo. waqti intaas leeg kuma filna markab weyn inuu si buuxda uga baxsado ama uu dib u habeeyo nidaamkiisa difaaca. hubkan Iran waxa intaas u sii dheer in xumbadaas gaaska ah ay adkeyn karto in lagu ogaado qalabka hirmaqalka badda kuwaas oo badanaa lagu baaro waxyaabaha ku socda biyaha hoostooda. taasi waxay ka dhigaysaa hubka mid qarsoodi ah ilaa uu ka gaaro bartilmaameedkiisa. marka laga hadlayo awoodda qaraxa, gantaalkan badeed waxa uu sidaa walxa qarxa oo miisaan culus leh, laakiin khatarta ugu weyn ma aha oo kaliya qaraxa laftiisa ee waa mawjadda cadaadiska ee ka dhalatay marka uu ku qarxo biyaha hoostooda. hirku waxa uu si xoog leh ugu dhacayaa gidaarka markabka waxayna sababi kartaa burbur gudaha ah oo halis ah. waxa kale oo la sheegay in hubkani leeyahay hab ishagid u gaar ah, taas oo ka dhigaysa mid aan si fudud loogu jahawareerin karin faragelin isgaarsiineed. marka la rido wuxuu raacayaa bartilmaameedkiisa isagoo aan u baahnayn hagid joogto ah. arrinta kale ee muhiimka ah waa goobta juqraafiyeed. marinka Hormuz ee u dhaxeeya gacanka Faris iyo badda Cumaan waa meel ciriiri ah oo maraakiibta waaweyn ay khasab ku tahay inay u maraan si taxadar leh. meelaha qaarkood masaafooyinku aad bay u gaaban yihiin, taas oo ka dhigaysa markab kasta mid si fudud loo gaari karo haddii hubkan laga soo rido meel dhow. khubarada ayaa qaba in qaraxa ka dhaca dusha sare mararka qaarkood la xakameyn karo, laakiin marka qaraxa uu ka dhaco gunta biyaha uu abuuri karo cadaadis xoog leh oo ku faafa qaybaha markabka oo dhan. cadaadiskaas ayaana dhaawici kara matoorada, nidaamka tamarta ama korontada iyo qalabka kale ee muhiimka ah, taas oo markabka ka dhigi karta mid aan sii shaqayn karin xitaa haddii uusan quusin. xeeldheerayaashu waxay sidoo kale qabaan suurtagalnimada in hal mar la isku daro weeraro kala duwan, maraakiib yaryar oo dusha sare ka imanaya, diyaarado aan duuliyo lahayn oo hawada ku mashquulinaya difaaca, iyo gantaallo badeed oo hoosta ka imanaya. ujeedadu waa in nidaamyada difaaca lagu mashquuliyo bartilmaameedyo badan si ugu dambeyn mid ka mid ah uu ugu duso si qarsoodi ah.
su-aasha ayaa si ah ma u bareeri doonaan maraakiibta waaweyn ee Mareykanka halista ah inay galaan meelaha ciriiriga ah mise istaraatiijiyadu waxay noqon doontaa in laga fogaado meelaha ay khatarta badan ka jirto. waxaa cad in tiknoolajiyada cusub ay hadda bedelayso xisaabta awoodda. markab aad u weyn mararka qaarkood ayaa noqon kara bartilmaameed aad u sahlan. hal hub oo xawaaro sare leh haddii si xeeladaysan loo adeegsado wuxuu abuuri karaa walaac ka weyn intii la filayay. ugu dambeyn arrintu ma aha oo kaliya awood hub balse waa xisaab siyaasadeed, qiimeyn halis iyo faham istaraatiiji ah. dagaalka badda ee casriga ma aha oo kaliya tirada maraakiibta aad haysato ee waa tayada tiknoolajiyada iyo sida aad u adeegsanayso. wararka ugu dambeeya ee xiisadda Mareykanka iyo Iran halkan ayaad kala soconaysaan. tabinteennana intaas ayaan ku hakinay. waa Abubakar Maxamed oo idin leh ha mogaanina inaad ku soo biirtaan kanaalkeena T15 Media. intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan.